ka muujisay heshiiskaasi. cabdiqaadir jakaarta ayaa faahfaahinaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii dowladda Jabuuti ee ka carootay isla markaana jawaabta ay ka bixisay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka sheegay xilliga uu ku sugnaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaramada midooba ka codsayn cunaqabateynta hubka laga qaado dowladda Eritrea oo dagaal dhanka xuduudka uu kala dhexeeyo dowladda Jabuuti. war qoraal ah oo soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kaga hadlay arrintaas, waxaana qoraalka uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook u qornaa sida tan: waa tallaabo dhanka fiican loo qaaday haddii dowladda Soomaaliya ay hagaajinayso cilaaqaadka aan la leenahay dowladaha iyo shucuubta gobolka. ha yeeshee shacabka iyo dowladda reer Jabuuti waxa ay naga mudan yihiin inaan dhoorno aan u helino jiritaanka dalkooda iyo dowladnimadooda. suurtagal nagama aha inaana la sahlanaato dhammaanaanshaha dhulka reer Jabuuti iyo geesiyaasha weli dagaalka lagu laayahay. waxay naga mudan yihiin inaan ugu helino sidii ay noogu heliyeen oo ay weligood noo garab taagnaayeen oo ugu dambaysay ragga iyo gabdhaha hiil walaal ee naftooda Soomaali u huray. dadnimada iyo damiirkuba waxay noo tilmaamayaan inaan markaasi laga abaal dhicin, ayuu yidhi qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebooka madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. bani aadamka hadiyad uu bixiyo waxaa ugu qaalisan nafta reer Jabuuti. xoog iyo xoolo kaliya naguma garab istaagin ee naf iyo dhiig ayay noo hureen. madaxdeennu ma isweydiiyeen meeqa carruur ah ayaa aabbayaashood ku waayey Soomaaliya? sidoo kale meeqa marwo ayaa saygii ay jeclaayeen ku waayey Soomaaliya? ama meeqa hooyo ayaa wiilashii ay jeclaayeen ku waayey iyo uheelinta jiritaanka Soomaaliya? haddaba madaxda dalkeenna waxaan ugu baaqayaa inay dib u eegis dhab ah ku sameeyaan mowqifka ay ka qaateen arrimaha u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Jabuuti ayaa waxay ka mid tahay dowladda taageera Soomaaliya, waxaana gobolka Hiiraan ku sugan ciidamo ka socda dowladda Jabuuti kuwaas oo ku howlgala magaca howlgalka AMISOM iyadoo loo yaqaano hiil walaal. dowladda federaalka Soomaaliyana madaxdeeda weli wax jawaab ah kama bixin jawaabtii ama hadalkii ka soo yaray dowladda Jabuuti.